daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Tusmo Wanaag. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa waraysi aan la yeelanay maamulka iyo hoggaanka hay'ad u adeegta naafada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan naafada ka soo jeeda qaaradda Afrika ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Barnaamijkeena guud ahaan wuxuu ka hadli doonaa adeegyada ay u qabtaan naafada iyo waliba muuqaalka wanaagsan ee ay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota. waraysigiina wuxuu u dhacay sida tan. mahad cali xasan ku soo dhawow barnaamijka Tusmo Wanaag. waa mahadsantahay cabdiraxmaan martiqaadka aad ifadisay oo barnaamijka Tusmo Wanaag. mahad waxaad ii sheegtaa muddo intee dhan ay hay'addu jirtay? hay'addu waxay jirtaa muddo 3 sano hadda, sanadkii afraad bay gashay. maxay yihiin marka adeegyada aad u qabataan naafada Soomaaliyeed? adeegyada aan naafada u qabano oo hay'addu qabato waxay ku saleysan tahay oo ay ku saleysan yihiin baahida ay iyagu qabaan oo dadka naafada ah mid guud iyo mid gaar ahaanba. taana waxa keenay inaan hay'adda samayno oo ay waliba ka mid yihiin dadka naafada hay'adda madaxdeedii iyo dadkii hawsha waday oo shaqeynayay waana ta keentay inaan baahida loo qabo darteed aan hay'adda u samayno. tusaale ahaan haddaan kaa siiyo adeegyada aan qabano waxay u badan yihiin oo ka mid ah inaan horta number 1 cod u noqono kow. laba xigta waxa waaye inaan ku xiriirno adeegyada xagga dawladda iyo xafiisyada wixii kaga xiran. saddex inaan isku xiritaanka guud iyaga iyo bulshada iyaga dhexdooda inaan ka shaqeyno. waxyaabo kale waxa sii jira xagga caafimaadka waa ka caawinaa, transportationka, immigration hadhihin, housing hadhihin, wax kasta oo u baahan yahay qofka dhibaatada qaba, qofka dhibaataysan Soomaalida naafada waxay u baahan yihiin ka caawinaa. waxayna nagala soo xiriiri karaan dhowr siyaalood bay nagala soo xiriiri karaan. website-ka nagala soo xiriiri karaan, wax soo wici karaan telefonkayga, xafiiskaygana hadday imaan karaan oo dad imaan karayihiin way imaan karaan, laakiin saddexdaas baa nagala soo xiriiri karaan by phone, by adresska iyo website-ka. Waa mahadsantahay. هذا